taliye ciidamada booliiska degmada Shibis ee gobolka Banaadir ayaa isku soo dhiibay ciidamada mucaaradka isagoo sheegay in uu gartay isla markaana uu qayb ka qaadanayo isbeddelka ka socda magaalada Muqdisho oo ay wadaan dhaqdhaqaaqyada mucaaradka sidoo kale ciidamada militariga ah ee diidan muddo kordhinta uu sameystay sharci darrada ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajaha ee muddo xileedkiisu dhamaaday mar uu hadlayna waxa uu sheegay saraakiisha ciidanka booliiska saraakiisha ciidanka militariga saraakiisha ciidanka asluubta iyo saraakiisha ciidanka nisa dhamaan waxaan ku baaqayaa waad u jeedaan magaalada Muqdisho dhibka ka taagan waxa waaye magaalada Muqdisho dhibka ka taagan waxa waaye reer Muqdisho qaasatan gobolka Banaadir dadku ku nool waxaan u sheegaa anigu isma dhiibin laakiin waxaan gartay waxa meesha yeelan karta waxaan arkay hooyooyin iyo caruur iyo dadkii reer Muqdisho gobolka Banaadir deganaa lagu dul dagaalamayo hadafka dagaalka uu yahay mid oo siyaasadeysan marka siyaas darteed waxaan garab istaagay oo aan u tagay oo shaqadii aan hayay anigoo ah taliyay saldhigga booliiska Shibis oo aan uga tagay wax meesha yaalo waaye marka waxaan garab istaagay walaalahay waxaan isku dayaa marka intaas kadib waxaan ugu baaqaa saraakiisha ciidanka booliiska rag saaxiibaday ah inay soo garab istaagaan oo cadawga wadanka haystaan ka sifeeno sidoo kale saraakiishii soo dhaweysay ayaa goobta ka hadlay iyagoo u mahad celiyay sida uu u gartay in uu isbeddelka qayb ka qaato sidoo kalena waxay ugu baaqeen ciidamada kale in ay qayb ka qaataan isbeddelka ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho saldhigga Shibis walaalkeen Kabtan Farxaan Jalaale kaasoo maanta gartay in uu badbaasho dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu badbaasho sharciyada wadankiisa waxa uu u dhaartay ayuu maanta ka dhabeeyay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa garashada oo gartay walaalkeen Kabtan Farxaan Jalaale runtii waa aad iyo aad farxad weyn noogu tahay maanta in nin dhalinyaro ah sargaal ah u dhaartay dalka oo garto inuu badbaadiyo dalkiisa iyo dadkiisa waa soo dhaweeynaa boqolkiiba boqol kusoo dhawaan leenahay dadkaagi kusoo dhawow dalkaagi kusoo dhawow ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan waxaan rajaynayaa in farxaan lagu daydo taasoo maaragtay muujinayso Soomaalinimo muujinayso garasho muujinayso badbaado waan ognahay shalay wixii meeshan ka dhacay aan joogno waxa dadka maatida shacabka ah hubkii ciidamada Soomaaliya loogu talagalay ayaa shalay waxa loo adeegsanayay in lagu rido lagu baabasho lagu cabsi gelsho in maaragtay madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu kursiga sii joogo waxaan idin leeyahay saraakiisha la midka ah Kabtan Farxaan waxaan leeyahay ciidanimadu shakhsi ma lahan ciidanka Soomaaliyeed waa ciidanka Soomaaliyeed madab ma lahan nooc ma lahan waa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay ayax tag ee la reeb war sharciyada ayaa mar walba sareeyay sharciyada aan taageerno sharciyada aan garab istaagno waan rajaynaa in saacadaha soo socdo waqtiyada soo socdo bahda saxaafadda aan la hadalno soo dhaweyno Farxaan taliyay saldhigga Shibis iyo inta la midka ah garashada ay garteen aad iyo aadan u bogaadihiina soo dhaweeyna soo dhawo Farxaan ku leenahay insha Allah inta kalena waa rajaynaa in soo dhawaadaan Cabdikariim Cali Aadan warbaahinta goobjoog waqooyiga magaalada Muqdisho